asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran janaalkan soo dhowaada haddaba muuqaalkana maanta waxaan uga hadlaynaa musalsalka dhaawaca qalbiga xalqadiisa 27 iyo xilliga la daawan doono yacni akhbaar saxa ama waqti saxa oo la daawan doono xalqadiisa 27 musalsalka dhaawaca qalbiga inta aanan muuqaalka guda gelin fadlan daawade muuqaalka laagnoo saar sidoo kale haddii aad ku cusub tahay janaalkeena subscribe saar oo gambalaalkana furo waa mahadsantaynta ka bacdi daawada ee soo dhowow haddaba saan wada ognahay xalqadii 26aad waxaa la daawaday muddo ka hor yacni sanadka cusub ka hor ayaa la daawaday kabacdi markii uu sanadka cusub ee 2022 uu soo galay sanadkaas markuu soo galay kabacdi dhammaan taxanayaasha turkiga hakad ayay galeen weliba tana waxaa hakad aada sii galay labada t v ee a t v iyo fox t v marka a t v waxay dhammaan taxanayaasheedii waxay go-aansatay in ay dib u soo celiso yacni hadda waqti taxano walba oo a t v ka socday waqti ayaa la sheegay la daawan doono soo marka dhaawacee qalbigana waqti ayaa la sheegay la daawan doono xalqada 27 waxaan jeclaystay in aan muuqaalkan idinkula wadaago haddaba ugu horeyntii xalqadii u dambeysay ee 26 ayaa waxay nagaga dhammaatay meel aada iyo aada u ximaadaysan kadib markii ninkii yamaanaha uu la wareegay guriga reer sanjaagsaade haddaba bal ugu horeyntaan ii sheega xalqada xilliga la daawan doono xalqada 27 oo labadeedii goosgoosba aan daawanay waxaa la daawan doonaa isniinta soo socota waa 17 January subaxda salaasada ayay idin soo gaari doontaa iyadoo luuqadaha kale ku kala baxaysa sida English iyo Carabi marka isla salaasada ayaa faaladeeda naga sugaysan insha Allah salaasada ayaa anaguna soo falanqeynaynaa haddaba xalqadii 26aad waxay ku dhamaatay meel xiiso badan sidoo kale waxaan ognahay xalqadaasi xalqadii korey in ay dhaceen dhacdooyin la yaab leh yacni isla xalqadii 26aad waxaa dhintay ninkii lagu magacaabay cadnaanna waxaa dishay qoftii handee ahayd haddaba yaa khashifi doona see lagu ogaan doonaa ma hooyadeeda ayaa khashifi doonta mise bituul saan wada ognahay wax walba ay ka daba tagtaa oo waa tii soo ogaatay yamaan iyo cadnaan in ay yihiin wiil iyo aabihiis marka dadka qaar ayaa waxay sheegeen in bituulla ay soo ogaan doonto arinka handee in ay dishay cadnaan soo marka bituul sida ay u soo socoto waxay u iman doontaa odaygii cadnaan ahaa iyo islaantii zumruud ahayd inkastoo zumruud ay arrinkan ogtahay haddana waa mid qoftan bituula u sheegi doonta in gabadhani ay wax walba ka dambeysay soo marka maxaa dhici doona marka uu ogaado ninka lagu magacaabo Friid isagii handee maxaa dhexmari doona sida loo badinayo uurkaasi ay handee leedahay waa mid beena ayaa la leeyahay yabaana marka uu ogaado waa mid ay istagaali doonaan hadda waxaan maraynaa xalqada 27 dhamaadka musalsalkuna waa u soo dhowahay si uu ku dhammaan doonana lama oga runtii yamaan waayihii dhaxan wuxuu ahaa nin dami oo war laga haynin laakiin hadda ayuu soo ragaal celiyey oo hadda ayuu kusoo laabtay sidiisii hore sidoo kale waxaa hadda moodaa in ay sii damayso sheekadii oday Shaahiin iyo Mirsa haddaba odaygii Shaahiin ahaa dabcan waxaa maqashay qoftii Cayshe ahayd Cayshena waxay ogaatay odaygan inuu rabo inuu kelida ka saarto Cayshena hadda saas waxay ku ogaatay odaygaasi inuu qayaani rabay wadana ka lahaa marka xalqadaha soo socda labadooda waa kuwa isku dhici doona mana aha kuwa sii wada joogi doona taasi waxay cadeynaysaa in uu taxanaha soo saarayo wadadii uu ku dhamaan lahaa Cayshe mar baadii ogaatay waxa taxanuhu cagta soo saaray wadadii uu ku dhamaan lahaa haddaba dhamaadka musalsalka qoftan handee lagu magacaabo waxay ku dambeyn doontaa xabsiga laakiin ma sheegi kari yamaan meesha uu ku dambeyn doono iyo inuu soo celin doono reerka gurigooda sidoo kale yamaan isla goosgooska labaad ee xalqada 27 waxa uu la wareegay dabcan shirkadii taasna macnaheedu waxay tahay yamaan inuu wax walba la sii wareegi rabo haddaba waxaa su-aal isweydiin mudan ah siduu ula wareegay yamaan waxa uu sameeyey intuusan cadnaan dhiman ka hor cadnaan ayaa warqado loo keenay waa uuna saxeexay sidoo kale dabcan waxaa la sheegayaa in yacni cadnaan uu dhaxalka ugu wada tegay ninka yamaan lagu magacaabo cadnaan markuu arrinkaasi ogaaday uu isdhahay bal anigu wax xumaan uga tagin yarkan isagoo soo leh ayaa waxaa dhacday in uu dhexda loo galo odaygiina saas uu ku dhinto oo odaygii halkaas uu nagu macasalaameeyo sidoo kale yamaan waxa uu duulaan ku qaaday odayga cadnaan ahaa yacni
maxkamadda inta tagay ayuu dhahay xaqayga ilmanimo ayaan rabaa ama xaqayga in la siiyo maadaama aan ahay wiilkiisa intaasoo dhanna uusan ii sheegin inaan wiilkiisa ahayn. soo marka ninkan Yamaan lagu magacaabo qaabkaasi ayuu lacagta iyo wax walba ula wareegay. Haddaba haddii sida naloo sheegay waxaa naloo sheegay in aysan uur qaadi doonin, laakiin waxaan aragnaa in ay leedahay hadda uur ayaan aniga leeyahay. Sidaasi darteeda Yamaan waa u naxariista isagoo ka fikiraya cunugiisa. Waxa uu soo dhaweystay Hande ayuuna sidaasi ku raacay oo hadda sidaasay iskula joogaan. Qoftii Butuul ahaydna waa uu eryay. Inkastoo daawadayaasha qaar ay ku mashquulsan ama ay la yaaban yihiin yacni Hande iyo Yamaan xalqadii 3 4 sano 6 meelahaasi ma ahayn kuwa is xiiseynayay. Saan wada ognahayba Hande guurkoodu waxa uu baaqday ninkan Yamaan lagu magacaabo. Soo haddana ma ahayn markii ka bacdi kuwa is xiiseynayay Yamaanna waa mid iskaga tagay ayuu ahaa. Maxaa kalifay hadda in uu dib u jeclaado? Waxaa loo badinayaa kaliya in uu ka fikirayay wiilkiisa mustaqbal ama ilmaha yar u dhalay mustaqbalkiisa yacni ma sheegi karay in uu yahay wiil ama in ay tahay gabadh ma sheegi karay. Soo marka ilmaha yar ee Hande caloosheeda ku jira ayuu ka fikiraya. Inkastoo ay caddaan doonto arrinkaasi ka bacdi marka bila la joogo, haddana dadka qaar iyo faallooyinka qaar ayaa waxay leeyihiin Hande waxa ay samayn doontaa ama inta dhakhtarka tagto ayay ilmo been isku abuuri doontaa si ay ninkan Yamaan lagu magacaabo u moodo ilmihiisa oo saas ayay Hande samayn doontaa. Haddana faallada qaar ayaa waxay leedahay dabcan Hande say ilmahaas uga abuuri yacni marba haddaysan uur lahayn iyadana dhaawac ayaa soo gaaray ay ahayd uurna ma qaadi karto. Yacni waxaasoo waxay caddaan doonaan xalqadaha soo socda. Haddaba waxaan sugnaba waxaa weeye Fariid intuu ka ogaanayo Hande in ay dishay aabihiisa iyo wixii dhici doona ayaan bal markaasi aragnaa. Hande inay xabsiga ku dambeyso iyo in uu Yamaan badbaadiyo yaan bal arki doonaa insha Allah. Sidoo kale asxaabteena waxaan idiin sheegaynaa gabadhii hadda taxanaha lagu soo darayay in dabcan ay doorkeedu ahaan doonto Yamaan walaashiisa. Sidee yacni Yamaan walaashiisa ayay noqon doontaa gabadhaasi taxanaha lagu soo darayay. Yamaan walaashiisa ay noqon doontaa waxaana dhashay Faraaye ayaa dhashay. Yamaan hooyadiisa waa Faraaye. Waxa Faraayena waa islaantii mar walba ay Zaaday ka masayri jirtay oo Cadnaan hadda ka hor guursaday ama uu jeclaa. Sidoo kale Cadnaan mar walba uu booqan jiray Faraaye qabrigeeda haddii xastin xalqadina soo dhaafay. yacni Faraaye islaantaas waad garanaysaa inuu maleynayaa. Sidoo kale Faraaye waxay walaaliyihiin islaanta Fidiya ayay walaaliyihiin oo Fidiya waxay barar u tahay Yamaan. Haddaba waxaan sugnaaba imaanshaha Yamaan walaashiisa ayaan bal sugnaa xalqadaha soo socda. Inkastoo taxanaha ratingkiisa uu aad u hooseeyo. Si kastaba ha ahaatee fadlan muuqaalka like noo saar. Sidoo kale haddii channel ku cusub tahay subscribe noo saar. Waa ku mahadsantahay daawashada anigoo saaxiibkiina Khalid. Waxaan idinkaga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala.